daawadaha qiimiga badanow waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kale channelka subscribe saar si aad noogu dhiirigeliso samaynta muuqaalo kale oo xiiso badan beri baa gurigan yar waxaa ku wada noolaan jiray haweeney iyo saddexdeeda gabdhood saddexda gabdhood laba ka mid ah midi waxay leedahay hal il midina waxay leedahay saddex indhood labadan gabdhood ayayna hooyadu aad u jeceshahay ayaga ayayna siisaa cuntada midda ugu macaan uguna qiimaha badan balse gabadha saddexaad inkastoo ay dadka caadiga ah u eg tahay haddana hooyadu ma aysan jeclayn labada gabdhood oo kalena weeyasi jireen gabadhan waxay ku labisan jirtay dharka labada gabdhood oo kale ka soo dhammaada cuntada ay soo reebaan ayayna cuni jirtay labada gabdhood waxay gabadhan ku samayn jireen kuna dhihi jireen wax walba oo xumaan ah si ay uga xanaajiyaan ugana oysiiyaan inkastoo ay sidaan xun ula dhaqmi jireen haddana gabadhu waa gabar qalbi wanaagsan oo leh dabeecad qaali ah haye shimbirahayga quruxda badnaayow waad baahan tihiin maantana waxaan idiin keenay cunto yar waxaan si rajaynayaa inaad ku dheragtaan maalin maalmaha ka mid ah markii hooyadii iyo labadii gabdhood ay ka dhargeen cuntadii ayay dhammaantood ka wada istaageen miiska si ay u soo fadhiisato gabadhii labada indhood laheyd una cunto reerreebkooda hay abbaayo soo ma ogid in gabadhan labada indhood lihi aysan nala mid ahayn xitaa nooma eka maxay tahay sababta ay weelkeenna wax ugu cunayso haa waa sax yaray adiga nagama mid tihid waa inaad naga fogaataa gabadhii aad ayay uga murugootay hadalkooda waxayna aaday dhanka duurka iyadoo aad u ooynaysa wayna iska oysay ilaa uu iftiin ka soo baxay horteeda meel geedkan u dhow waxaana iftiinkii ka soo dhex baxay haweeney jinniyad ah oo dhar quruxsan wadata lehna laba garbood oo qurux badan haweenaydii ayaa soo istaagtay horteeda waxayna wadataa ul sixir ah oo dahab ka samaysan gabadhii aad ayay u yaabtay maxaad la ooynaysaa gabadhaydiyey aniga labada gabdhood ee ila dhashay mid waxay leedahay hal il midna waxay leedahay saddex indhood aad ayayna u karahsadeen qaabkan quruxda badan ee anigu aan ahay maxaa yeelay anigu waan ka duwanahay aniguna had iyo jeer waxaan cunaa cuntada ay soo reebaan si xun ayayna iila dhaqmaan gabadhaydiyey iska tir ilmada hadda waxaan kuugu imid inaan kuu sheego arrin aad ku faraxdo usha aan hadda ku siiyey mar kasta oo aad dareento baahi waxaad dhahaysaa ushaan sixirka ahay maqal hadalkayga miiskana ka buuxi cuntada midda ugu macaan kadibna ushii ayaa si kadis ah u iftiintay waxayna ka soo haaday gacantii gabadha waxayna isku beddeshay miis qurux badan oo korkiisa ay ku diyaarsan tahay cuntada midda ugu macaanta badan iyo cabitaanno kala duwan gabadhuna weligeed ma aysan arkin cuntadan oo kale alla caraf badanaa wanaag badanaa cuntadaani gabadhaydiyey waxaan kuu ballan qaadayaa inaadan baahi dambe arki doonin hadda kadib goortii aad rabto cun oo cab sidii aad doonto markii aad dheragtana waxaad ku dhahaysaa ushaan sixirka ahay miiska qari kadibna waxaa qarsoomi doona miiska jinniyaddii hadalkeedii ayay dhammaysatay kadibna way qarsoontay gabadhiina waxay la yaabtay waxa ay aragtay laakiin aad ayay u gaajaysneed waxayna bilowday inay cuntadii cunto ilaa ay ka dheragto alla farxad badana weligay ma cunin cunto sidaan u macaan aad ayaan u faraxsanahay hadda mar dambe ma cuni doono waxa ay soo reebeen gabdhaha ila dhashay laakiin waa inaan qariyo waxaan inta uusan qof ii arkin ushaan sixirka ahay qari miiska si kadis ah ayaa miiskii iyo wixii dul saarnaa oo dhan waxay iskugu beddeleen ushii sixirka ahayd markii ay gabadhu ku laabatay fiidkii guriga waxay aragtay miiskii cashada oo ay saaran yihiin xoogaa cunto ah oo ay soo reebeen gabdhihii la dhashay iyo hooyadeed si ay gabadhu u cunto miiska iyo saxamadana u dhaqdo laakiin habeenkan ma aysan milicsan reerreebkooda miiska saaran waxay bilowday inay saxamada u nadiifiso si dhaqso ah laga soo bilaabo xilligaasna mar kasta oo ay baahato waxay soo aadi jirtay kaynta cidlada ah ee u dhow geedkan waxayna amar siin jirtay usha waxayna cuni jirtay cuntada ilaa ay ka dheragto guriga ayayna ku laaban jirtay iyadoon qofna arkin balse maalin ayaa labadii gabdhood arkeen in walaashood aysan cunayn reerreebkooda
waxaan u malaynayaa inuu jiro wax gabadhan u qarsoon maxaa yeelay maba u dhowaanayso miiska arrintaasna maalmahan oo dhan ayaan arkayay waxaan u malaynayaa inay cunto kale ka soo cunto meel kale waa inaan baarno arrinkeeda maalintii xigtay gabadhii ayaa aaday duurka iyadoo aad u faraxsan waxaana daba galay labadii gabdhood ee la dhashay ayagoo isqarinaya tartiibna u socda gabadhii waxay iska fiirisay midig iyo bidix si ay isaga hubiso inuusan qofna daba socon mana aysan ogaan in gabdhihii la dhashay ay joogaan meesha waxayna u malaysay inay kaligeed tahay ushii ayayna amar ku siisay inay miiska cunto ka buuxiso waxayna ku tiri ushaan sixirka ahay maqal hadalkayga miiskana ka buuxi cuntada midda ugu macaan si toos ah ayaa miiskii u soo muuqday sidii caadada ahaydba cunto macaan badan ayaana korkiisa ka soo buuxsantay gabdhihii ayaana arkay waxa dhacay indhaha ayayna taageen yaab dartiis haa ilaan sidaan ayay cunto ku heshaa maalin kasta waxaan la yaabanahay sababta ay u baahan la'dahay fiiri miiskan waxa cunto qurux badan ka buuxa nakeen waxaan u laabanaynaa hooyo waxaana u sheegaynaa wax walba waxay aadeen gurigii waxayna hooyadood u sheegeen wixii ay samaysay gabadhii labada indhood lahayd aad ayayna hooyadu u carootay siday u cuni kartaa cunto macaan badan waan arki doonaa marka ay soo laabatana waxaan ka qaadi doonaa usheeda sixirka ah waxay sugeen soo laabashada gabadhii labada indhood lahayd markii ay soo laabatayna ushii ayay xoog uga qaadeen hooyadiina waxay kala jebisay ushii mayaa hooyo sidaasa samayn waa ku baryaa waxaan kuu dhihi doonaa cashar lama iloowaan ah si aadan mar dambe ii khiyaamin hadda waxaan arki doonaa sida aad wax u cuni doontid gabadhii aad ayay u murugootay waxayna qaadatay labadii jab ee usha waxayna u carartay dhanka duurka waxayna bilowday inay iska oyso ilmaduna ay dhabannadeeda ka qubato ilaa ay mar kale u timid haweenaydii jinniyadda ahayd gabadhaydiyey maxaa kugu dhacay ii sheeg maxaad la oynaysaa maxaa dhacay maxaa yeelay hooyadii ayaa ushii aad isiisay oo aan cuntada ka cuni jiray iga jebisay hadda wixii ka dambeeya gaajo daran ayaan dareemi doonaa wax dhib ah ma arki doontid gabadhaydiyey wax kasta oo dhaca looma baahna inaad murugooto waa inaad labada jab ee usha ah ku duugto meel qorraxdu ay qaban karto meeshaasna waxaan kuu ballan qaadayaa inaad ka heli doontid wax aad u fiican jinniyaddii usheedii ayay dhaqdhaqaajisay wayna qarsoontay gabadhiina waxay fulisay wax walba oo ay jinniyaddu u sheegtay ushii ayayna duugtay subaxdii markii ay qorraxdu soo baxday ayaa waxaa meeshii ay usha ku duugtay ka soo baxay sanduuq dahabi ah oo weyn sanduuqa waxaa ka buuxay dahab lu'lu' qalin iyo shayaal kale oo qaali ah hooyadii iyo labadeedii gabdhood aad ayay ula yaabeen sanduuqan aad ayayna ugu farxeen laakiin gabadhii labada indhood lahayd oo keliya ayaa ogaatay in sanduuqaani uu yahay wixii ay jinniyaddu u ballan qaadaysay shalay hooyadii iyo labadeedii gabdhood ayaana ku orday dhanka sanduuqa markii ay u tageenna sanduuqii ayaa isxiray si kasta oo ay isugu dayeen furitaankiisana way ku hungoobeen wayna furi waayeen kaleexda aan isku dayo inaan furee waxaa laga yaabaa inuu ii furmee maxaa tiri waan furaa sanduuqan annaga ayaa iska leh dabaal adoo kalahana uma oggolaanayno inay furto mana qaadanaysid dahabka iyo qalinka ku jira halkan ka fogow halkan waxba kuma lihid sanduuqan dabaal yahay waxay bilaabeen mar kale inay isku dayaan inay furaan ilaa ay ku daaleen waxayna u maleeyeen in sanduuqan aan weligiis la furi karin markii ay ka tageen kadib ayaa waxaa sanduuqii soo aaday gabadhii labada indhood lahayd markii ay u soo dhowaatayba waxaa furmay sanduuqii waxayna ka qaadatay wax yar oo dahab ah waxayna u carartay dhanka suuqa waxayna ku soo iibsatay cunto badan oo aad u macaan sanduuqiina isagoo furan ayay ka soo tagtay subax kasta hooyada iyo labadeeda gabdhood ayaa u yimaada sanduuqa oo furan marka ay u soo dhowaadaanna wuu isxiraa waxay isku dayaan inay furaan qofna uma sheegaan iyagoo ka cabsanaya in laga furto oo laga qaato waxa ku jira marka ay ka tagaan waxaa u yimaada gabadha yar waxayna ka qaadataa waxa ay rabto si ay cuntadeeda ugu soo iibsato
markasta waxay isku daydaa inay hooyadeed u sheegto inay iyadu furi karto sanduuqa, laakiin hooyadeed marna ma aysan rumaysan jirin warkeeda. maalin maalmaha ka mid ah, xilli hooyadii iyo labadeedii gabdhood ay isku dayayaan inay furaan sanduuqa, gabadhii yareedna ay fiirsanayso, ayaa waxaa soo agmaray boqorkii magaalada oo faraskiisii saaran. wuxuuna arkay sanduuqan quruxda badan, wuxuuna u soo dhowaaday xaggooda si uu u weydiiyo cidda sanduuqa iska leh. hooyadii ayaana si degdeg ah u tiri, yiri halkan ka fogow, ma rabo inuu boqorku ku arko, ee carar dhaqso. sidaas ayayna gabadhii samaysay, waxayna isku qarisay geedkan gadaashiisa si uusan u arkin boqorku. hooyadii ayaana boqorka u sheegtay in sanduuqa iyagu ay iska leeyihiin. boqorkii ayaana yidhi, ma awoodaan inaad furtaan sanduuqan quruxda badan. haa wiilkaygiyow, dabcan waan awoodnaa inaan furno, waxaana ku tusaynaa waxa dhexdiisa ku jira, waa alaab qaali ah. markii hooyadii sanduuqii u soo dhowaatay, aad ayuuba u sii xirmay. waxay isku dayday inay furto, gabdhihiina waxay isku dayeen mar kale, laakiin way ku daaleen furitaankiisa. boqorkii ayaana aad u carooday. waxaa la yaab ah inaad sanduuqan adinku iska leedihiin, haddana aadan awoodina inaad furtaan. waan iska baxayaa, waqtina iskagama kiin luminayo. kadibna boqorkii ayaa baxay. wax dhib ah ma jiraan gabdhahaygiyow, maalin kale ayuu boqorku soo laabanayaa, sanduuqaanna waan furi doonnaa. balse gabadhii labada indhood lahayd ayaa aad uga heshay boqorka, waxayna jeclaysatay in boqorku uu mar kale yimaado si ay u tusto inay iyadu furi karto sanduuqa. xilli galabkii ah, iyadoo kaynta dhexdeeda iskaga ciyaaraysa, ayay codkeeda kor u qaaday, waxayna tiri, waxaan jeclaan lahaa in boqorku uu i arko anigoo sanduuqa furaya, waxaana jeclaan lahaa inaan xoogaa dahab ah siiyo boqorka. markii ay gabadhii tiri warkaas, ayay maqashay haweenaydii jinniyadda ahayd oo leh, intaas miyaa waxa aad jeclaan lahayd oo dhan? haddaba waxaad helaysaa waxa aad jeceshahay. berri aad sanduuqa subax hore, ka hor inta aysan soo kicin hooyada iyo walaalaha. sidaas ayayna samaysay gabadhii labada indhood lahayd. subax hore ayay soo kacday, sanduuqii ayayna aaday. meel agteeda ahna waxaa marayay boqorka magaalada. boqorkii ayaana arkay iyadoo furaysa sanduuqa, aad ayuuna u yaabay, wuxuuna gartay in sanduuqa ay iska leedahay gabadhaani labada indhood leh. xaggeeda ayuuna aaday, wuxuuna weydiiyey halka ay ka keentay sanduuqan. waxayna uga sheekaysay sheekadeeda oo dhammaystiran, wuxuuna sheekadeeda ka dhex ogaaday inay tahay gabar wanaagsan oo khayrka la jecel nafteeda iyo dadka kale oo dhan. sidaas ayuuna boqorku ku guursaday gabadhii. arooskooda ayaana dhacay, ayadoo gabadhii ay isku qurxisay dhammaan wixii sanduuqa ku jiray oo dahab ahaa. boqorkii iyo gabadhii labada indhood laheedna waxay ku noolaadeen qasrigii boqortooyada, nolol aad u qurux badan oo ay ku dheehan tahay farxad iyo sacaado aan la soo koobi karin. daawadaha qiimiga badanow, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waxaan rajaynayaa inaad ka heshay muuqaalkan. fadlan ha ka labalabayn inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale channelka subscribe saar, adigoo gujinaya meesha yar ee cas muuqaalka hoostiisa. mahadsanid.